waxaa soo baxay nin ixtiraam loo muujiyey kolkii uu sheegay inuu ka soo jeedo tarantii nebigeenna naxariista nabadgelya korkiisa ahaatee. mar keliya waxaa lagu baraarugay hadalhaynta ninkan iyo sida uu durbo ugu faafay dunida. sheekh maxamed fawsi alkarkari waxa uu soo jiitay dadaad u tiro badan, waxaana uu socdaal ku maray waddamo badan. ninkani waxa uu ka soo jeedaa Morocco. isagu waxa uu yidhi waxa aan ka soo farcamay dhashii Cali, gaar ahaan wiilkiisii Xasan. sheekhan qaablabiskiisu waa mid ka duwan kuwa kale, wuxuuna awood u yeeshay socdaal tiro badan si uu dadka ugu baraarujiyo isirkii nebigu inay nool yihiin. dhowaan waxa uu ka degay Sacuudiga, waxaana soo dhoweeyey dhaxal sugaha boqortooyada. sheekhani waxa uu la soo baxay warqad la aqoonsan yahay oo caddaynaysa in ninkan yahay shakhsiga keliya ee sida dhabta ugu abtirsanaya suubanaheeni Moxamed naxariista nabadgelya korkiisa ahaatee. maxamed fawsi alkarkari waxa uu sheegay markii ay da'diisu ahay 19 sanno inuu jirkiisa ku arkay calaamado gaar ah oo isagu uu ku tilmaamay in lagu caddeynayo inuu ka soo jeedo farcii rasuulkeennii suubana Moxamed naxariista nabadgelya korkiisa ahaatee. sidoo kalena calaamadda waxa uu ka helay carruurtiisa oo dhan, isagoo sheegay inay dhammaantoodba ku dhasheen. sheekhu maanta waxa uu jiraa 50 sanno, aadna waxa uu u xiiseeyaa